gabadhan oo lagu magacaabo Twinkle waxay ka soo jeedaa dalka India. waxa caado u ah in saaxiibadeed ay waqti la qaadato haddii kalena ay gasho goobaha macbadka oo ayagu ay wax ku caabudaan waqtiyada fasaxa ay tahay. gabadhan reerkooda oo 4 caruur ah ka kooban oo ayadu ay ku jirto daada ugu yar daadeeduna ay tahay 13 jir waxay ku nool yihiin magaalada Lucknow ee ku taalla waqooyiga dalka India waana magaalo muslimiintu caan ku ah. gabadhan ayaana waxbarashada jecleen waxayna ka jeceshahay in ay ciyaarto. gabadhan reerkooda waxay degan yihiin xaafad magaalada hoose ka fog. aaboodna wuxuu ka shaqeeyaa tareen taas oo keentay waqtiyo badan in uu guriga ka maqnaado. caruurta waxa waqti badan la qaato hooyadood oo 42 jir ah. waxay sheegtay 4 gabdhood ee dhashay 3 waaweyn in ay fiican yihiin oo wax dhibaato aysan qabin laakiin gabadheeda yar ay jiran tahay taasi oo indhaha dhiig ka keenta. dhiiggaasi kama yimaado marka ay oonayso oo kaliya xataa wuxuu ka yimaadaa marka ay TV-ga daawanayso. meelaha uu ka yimaado indhaha oo kaliya ma ahan meelo kale oo jirkeeda kamid ah ayuu dhiiggaasi ka yimaadaa. meelaha ka yimaadana waxaa kamid ah gacmaheeda, indhaheeda, madaxa, lugaha iyo meelo kale oo jirkeeda kamid ah. ilaa iminka lama garanayo sababta jirkeeda oo dhiigga ugu qulqulayo. gabadhan reerkeeda waxa ay la yaaban yihiin gabadhooda iyo dhiigga meelaha uu ka imaanayo ayada oo dhaawacmin ayuu dhiigga ka yimaadaa. markay dhaqatana wuu ka istaagaa waqti kale ayuu haddana mar kale uu ka yimaadaa. gabadhan ayaa markii lagu arkay arrintani waxay ahayd muddo 2 sano ka hor. isla markiiba reerkooda waxay geeyeen dhakhtar deegaankooda ku yaala. dhakhtarkiina wuxuu kula taliyay dhaqaatiir waaweyn oo doontoonka jooga inay geeyaan. kadib markay geeyeen isbitaaladii waaweynaa iyo dhaqaatiirtii waaweynaa waxay ku yiraahdeen cudurrada adduunka laga garanayo kuma jiro cudurka ruuxan indhaha ka dhigaya. gabadhan ayaa iskuulka tagin tan iyo intii ay bilowday in ay indhaha ka dhigto. ilaa iyo 3 dhakhtar oo dhaqaatiir waaweyn ah ayaa isugu tagay gabadhan si ay u daaweeyaan waxna way ka qaban waayeen. waxa la geeyay dhammaan isbitaalada India ku yaala kuwooda ugu qatarsan uguna aqoonta badan. dhaqaatiirta jooga wax way ka qaban waayeen waxayna ku taliyeen in ay iska dhigto maadaama gabadhan aysan dhibaato ku qabin indhaha ay ka dhigayso. gabadhan hooyadeed oo wax laga weydiiyay dhaqaatiirta ay gabadhooda u geeyeen ayaa sheegtay in haddii dhaqaatiirta ay gabadha ay dhali lahaayeen ama caruurtooda ay ahaan lahayd ay ka fikri lahaayeen waxna ay ka qaban lahaayeen. sidaas daraaddeed ilmahani aysan ahayn ilmo ay dhalin. ayaduna waxay sheegtay anigu hooyo baan ahay. hooyana caruurteeda kama daalayso in ay baxnaaniso ilaa iyo inta caafimaadkooda ay ka helayaan. gabadhan gabar walaasheed ah oo reerkooda ugu weyn curudda reerkana ah ayaa sheegtay in ay dhaqaatiirta India wax kalsooni ah aysan ku qabin halka Soomaalida ay dhaqaatiirta Hindiyaanka ah ay aad u aaminsan yihiin. dadka xaafadda ay degan tahay ayaa gabadhan midba wax ku tilmaamay. qaar ayaa waxay sheegeen in gabadhani ay mucjiso tahay. qaar kalena waxay sheegeen in jirkeeda awoodda uu yartahay sidaasina ay ku dhigayso halka qaar kalena ay sheegeen in la ilaystay. qaar kaloo ka sii darana waxay sheegeen in ay raaqraad tahay. gabadhan oo meel walba wax loogu daaweeyo la geeyay ayaa habraha wax sheega ee Indiyaanka ah mid kamida loo geeyay taas oo arrintii uga sii dartay markay ku tilmaamtay gabadhani inay ruuxaan qabto. ruuxaantaasi ayaa gashay ayay tiri. ruuxaan meel ay harsato weyso ayaa gabadhani gashay taasi oo dhiigga ka dhuuqaysa. waxayna fartay reerkii gabadhan dhalay inay goobaha macbadka ay tagaan mar walba si ruuxaantaasi looga saaro. reerkan gabadha u dhalay ayaa waxay u tageen baadiri diinta Kirishtaanka aaminsan bal in uu caawin kara cudurkan oo la fahmi laayahay ee gabadhan ku dhacay. kaniisadaha sanabyada yaala ayaa waxaa ku sawiran sawir ay Nabi Ciise ula jeedaan oo gacmaha iyo madaxa, lugaha iyo kaliyaha ka dhigaya kaas oo ay dadka ugu sheekeeyaan bal in ay kaniisadaasi ay tagto. markii ay kaniisadii ay tageen ayaa baadirigii joogay wuxuu u sheegay gabadhii iyo hooyadaba in ay aaminin dhiigga gabadhooda ka socda iyo dhiigga sanabkaasi in ay isku mid ahayn. wuxuuna sheegay baadiriga in uu wax awooda uusan lahayn ilaa inuu u duceeyo mooyaane. duco Abu Kirishtaan ah markuu u duceeyay kadib gabadhii musqusha ayay gashay.
markay ka soo baxday dhiiggii ayaa madaxeeda ka yimid baadarigii khatar iska dhigayay arrintiisii halkaas ayay ku fashilmatay gabadhii iyo hooyadeed deegaankoodii ayay isaga soo laabteen hindiya oo ah waddan diimaha caalamka ka jira oo dhan laga aaminsan yahay ayaa dadka aaminsan diinta kirishtaanka waxay u dhigmaan 2%. gabadhan hooyadeed marnaba kama aysan quusan gabadheeda in ay caafimaad helayso waxayna safar u aadeen gobol kale oo 13 wejiyada iska mariyaan ama rinjiyada ay wejiyada la iska mariyo oo filmaanta ay ku jilaan magaaladaas ay tageen waxa agmara webi waxayna aaminsan yihiin dadka indiyaanka ah ee diinta hinduuga aaminsan ruuxa webigaasi ku qabaysta dembigiisa uu dhaqmaayo markay madbacyo kala duwan oo goobtaasi lagu sameeyey ay mareen oo dhammaantood ay soo mareen ayay markii dambe hotel yimaadeen ayagoo sugaya bal inay arkaan calaamad tusin karta in gabadheeda caafimaadayso waaba ayadiioo indhaha ka dhiigayso taas oo quus ka dhigtay waxay soo aadeen dhakhtar wax ku daaweeya dhirta iyo daawo dhaqmeedka kaas oo waraystay inta dhakhtar ay la kulantay dhakhtarkan ayaa waxa uu codsaday in uu daaweeyo gabadha in ay goobtiisa joogto oo uu dadka uu ku daaweeyo gabadhii yarayd ayaa diiday oo waxay ka cabsatay meesha ay joogayso taas oo dhakhtarkaas asagana shaqadiisii fashil ka dhigtay ruux kasta oo daawo sheegta dhakhtar iyo wuxuu doona ha noqdee marka ugu horraysa oo ay la kulmaan wuxuu iska dhigayaa khatar iyo ninkii daaweyn lahaa laakiin arrintiisa waxay ku dhammaataa fashil talow yaa gabadhan indhaha ka dhiigaysa daaweyn doona waxaa indiya yimid dhakhtar maraykan ah oo takhasus u leh cudurka dhiigga iyo dhammaan dhiigga bini'aadmiga dhiigga bini'aadmiga wuxuu u qaybsamaa 3 qaybood mid xinjir noqda ruuxa marka uu dhaawac soo gaaro mid oksijiinka soo jiida iyo mid jirka difaaca dhakhtarkan ayaa gabadhan darteed u yimid ogana yimid dalka maraykanka si uu u daaweeyo ama baaritaano uu u sameeyo bal waxa sababay ama sababta u ah gabadhan jirkeeda oo dhiigga uga imaanayo kadib markuu news ama war uu ka daawaday isagoo jooga Amerika dhakhtarkan ayaa gabadha iyo hooyadeed si aad ah ay u aamineen gabadha waxa ay sheegtay dhakhtarka maraykanka ah inay aad u aaminsan tahay in teedana uu wax ka qaban doono dhakhtarkii ayaa markuu arkay gabadhii oo dhiigaysa maalintii ugu horreysay oo uu la kulmay wuuba yaabay gabadh aan dhaawac ahayn oo dhiigaysa ileen wax lagaaga warramay iyo wax aad cayaan u aragtay waa kala duwan yihiin dhammaan dhiigyadii kala dubnaa ee gabadha ayuu baaritaano ku sameeyey 3 nooc oo dhiigga ahaa wax dhib ah ay qabaanna ma jiraan wuxuu haddana baaray hooyadeed sidoo kale dhib ma gaaray dardaaran ayuu hooyadeed uga tegay oo wuxuu ku yiraalaya isla socodayay gabadhan loo daaweeyo xaalkeeda ama uu ku guulaysto gabadhan wadayna ku daaweyn lahaa laakiin weli waa dhiigaysa korkeeda quus ayay qabtaa ayaad isdhihi kartaa maadaama intaas oo dhaqaatiir ah iyo intaas oo wax daaweeyaal ah ay ka quusteen